qisooyinka ugu yaabka badan ee ku jira quraanka waxaa ka mid ah qisada Cuseyr. Qisada nin geeriyooday 100 sano kadibna dib u soo noolaaday. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu isagoo jooga meel qabooro ah ayuu isweydiiyey su'aal ahayd: Alle, sidee buu u soo noolayn dadkan lafaha isku bedelay intaan isaga la dilin ka hor? 100 sano oo xiriir ahna uusan noqon qof la baadi goobo, meel kastana laga raadiyo. Dadkiisiina iyo tuuladiisiina wuxuu ku noqday hal xiraale cid ka jawaabta la waayey, meel uu jaan iyo cirib dhigay la waayey. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa dib u soo nooleeyey, wuxuuna ku soo noqday tuuladiisii. Soo noqoshadiisiina waxay noqotay mid amankaag iyo yaab ah, wuxuuna isku bedeli doonaa aayad iyo mucjiso ilaa maanta jiilba jiil uu ka dhaxli doono. Allana subxaanahu wa tacaala uu ku xusay quraankiisa. Waxaynu u jeednaa ninkii la oran jiray Cuseyr. Daawadayaal, ku soo dhawaada. waxaynu bilownay xalqad ku saabsan ninkii mu'minka ahaa ee Cuseyr. Xalqadani waxay yeelan doontaa baartiyo kala duwan si ay muuqaaladu u gaagaabtaan, dadkuna uga faa'iidaystaan. Waxaan soo saari doonaa muuqaalo gaagaaban oo aan uga warrami doono qisada Cuseyr.